kabtanka xulka qaranka Portugal Cristiano Ronaldo ayaa ku biiray kooxda Saudi Arabia ee Al Nassr isagoo la gaaray heshiis 2 sano iyo badh sida ay kooxdani ku dhawaaqday kadib markuu ka tagay Manchester United isagoo bilihii la soo dhaafay ahaa xor. Ronaldo ayaa ka tagay garoonka Old Trafford bishii hore kadib waraysi uu bixiyo ka cadhaysiyay Manchester waxaanu 37 jirkan weerarka ka ciyaara uu ku sheegay waraysigiisa inuu dareemayo qiyaano uu kala kulmay naadiga isagoo sheegay inaan wax ixtiraam u hayn tababaraha reer Holland ee Erik ten Hag ee hadda maamula kooxda Manchester United. Kooxda Al Nassr ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegtay in xidigan 5 jeer ku guuleystay abaalmarinta ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida ee Ballon d'Or oo ku biiray kooxdooda heshiis dhacaya ilaa 2025 laakiin ma aysan shaacin wax tafaasiil maaliyadeed. qandaraaska Ronaldo ayaa saxaafaddu ku qiyaastay in ka badan 200 milyan oo euro oo u dhiganta 214.4 milyan oo dollar. waxaan rajaynayaa inaan ku biiro saaxiibadayda cusub oo si wada jir ah u caawiyo kooxda, ayuu Ronaldo ku yiri bayaan uu soo saaray. Cristiano Ronaldo ayaa Sacuudiga iman doona isagoo wata abaalmarino badan oo heer naadi ah kadib markuu wacdara ka dhigay kooxda reer Spain ee Real Madrid intii u dhaxaysay 2009 ilaa 2018 isagoo kula guuleystay 2 koob La Liga, 2 koob Spanish, 4 koob Champions League iyo 3 koob oo koobka kooxaha adduunka. Nabadgelyo.